kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkina xulka wararka online daawadayaal waxaa la gaaray xilligaad maqli jirto wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale daawadayaal maanta qodobada wararka ugu waaweyn ee janaalkina xulka wararka online aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho faahfaahin ku saabsan qaraxaas iyo qasaaraha ka dhashay ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa al-shabaab waxay shaaciyeen magacyada iyo qabiilada ay ka soo jeedeen raggii weerarka ka dhacay hotel ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sababta keentay in Soomaaliland cadaadis xoogan lagu saaro in xoolaheeda aysan u dhoofin karin wadanka Sacuudi Carabiya warbixin kaga hayay dowladda Sacuudiga oo go'aan cusub ka soo saartay in Soomaaliland xoolaheeda ay dhoofiso oo loo iibgeeyo wadanka Sacuudi Carabiya warbixinada kale wararkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xog badan ayaan kaga hayaa ammaanka madaxtooyada Soomaaliya markan aad loo adkeeyay kadib qatar dhanka amniga ah oo la dareemayo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo safar ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta isagoo ka baqdin qaba markan isbahaysiga ay sameeyaan Fahad Yaasiin iyo waliba Ra'iisul Xasan Cali Khayre qaramada madaxweynaha waxay soo saartay digniin ku aadan doorashada ka dhici doonta Jubbaland oo ay ka digtay doorashadaasi al-shabaab oo sheegay in qaraxyo ay ku dileen 20 kamid ah askarta ciidanka Ethiopia qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan wararkeena maanta ee u diyaar garooba saaxiibayaal waxaa soo kormaraya wararkii ugu dambeeyay caasimadda Soomaaliya Muqdisho naga soo gaaray halkaas oo qarax ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay qarax ayaa maanta ka dhacay xarun shirkad ay ku leedahay magaalada caasimadda Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qaraxan oo ka dhacay qayb kamid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir qaraxan wuxuu ahaa mid xoogan waxaana laga maqlay caasimadda intiisa badan wuxuuna ka dhacay inta u dhaxaysa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ay ku leedahay xarunteeda plastic iyo waliba goob laga raro gaadiidka inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku dhintay 2 qof halka ay ku dhaawacmeen 5 qof oo kale labadan qof ee geeriyootay mid kamid waxa uu ahaa shaqaalaha shirkadda Somtel halka ruuxa kalena uu ahaa isla qof kale oo goobtaasi ku sugan sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka ah warar soo baxay waxa ay sheegayaan oo inta ay ku dareen qaraxan uu ka dhacay kaabiga hore ama albaabka laga galo xarunta shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ay ku leedahay plastic ee degmada Hodan qaraxan ayaa imaanaya maalin kadib markii shaaciyay kooxda Daacish ka dagaalanta Soomaaliya hanjabaad xoogan u dirtay shaqaalaha maamulka Dahabshiil ee u hanjabtay shirkadda Dahabshiil Somtel ayaa waxa leh Dahabshiil hasaate macda qaraxan inuu daba socday hanjabaadda Daacish iyo in kale walina ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay shirkadaha ammaanka ee Soomaaliya iyo waliba maamulka Somtel ee qaraxan la eegtay qodobada kale wararkeena ku jiraan waxaan eegi doonaa al-shabaab waxay soo bandhigeen magacyada iyo waliba qabiilada ay ka soo jeedaan shakhsiyaadkii weerarkii ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo halkaas oo hodheel ku yaala W hubeysan oo ka tirsan ururka al-shabaab muddo saacada ay ka dagaalamayeen ugu dambeynta ciidamada ammaanku ay soo afjareen weerarkii waqtiga badnaa qaatay oo ay al-shabaab dhismahaas ay ku galeen kooxda al-shabaab ayaa 4 maalin kadib waxay shaacisay magacyada iyo qabiilada ninkii hogaaminayay weerarkii ka dhacay magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose idaacadda Andalus ayaa baahisay wareysi laga duubay ninkaas oo isku qarxiyay weerarka magaca sarkaalka horkacay weerarkaas sabtidii ka dhacay ayaa waxa lagu sheegay in la yiraahdo Xasan Sheekh Nuur Gaashaale oo loo yaqaan Zubeer sidoo kale al-shabaab ayaa waxa la sheegay inuu ka soo jeedo baasha eelay ama raxweyn gaar ahaan jufada buhraad jufal yiraahdo gobolka Bay degta iyo Bokol Zubeer ayaa waxa la sheegay inuu ku biiray sanadii 2009kii sida uu sheegayo wareysiga laga qaaday wareysiga oo socday qadar 35 daqiiqo ah ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo la xiriira wararka sheegaya wareysiga oo soconaya qadar 35 daqiiqo ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo la xiriira weerarkaas iyo waliba ujeedada sababta laga lahaa weerarkaasi wararkani waxa lagu bartilmaameedsanayay hotelka Cascasay oo ku bilowda waxaan weerarkaas ku bilowday ismiidaamin iyadoo kadibna rag hubeysan ay gudaha u galeen hotelka Jubbaland ayaa xaqiijisay in halkaas lagu dilay 26 qof laguna dhaawacay 59 qof oo kale ay ku jiraan dad ajaanib ah muddo kadib al-shabaab ayaa baahiyay magaca iyo waliba qabiilka uu ka soo jeedo hogaamiyihii horkacay howlgalkaas ee ka dhacay
gobolka Jubbada Hoose. Wararka al-shabaab intaanan ka bixina isla al-shabaab waxay sheegeen in qarax ay leegteen kolayo ay la socdeen ciidamada Ethiopia ay dileen 20 ka mid ah dagaalyahanada hubeysan waa 20 ka mid ah ciidanka Ethiopia. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. qaraxan oo hamiino ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo qayb ka ah xilli ay marayeen deegaanka yirada halgan ee gobolka Hiiraan. ciidamada la qarxiyay ayaa waxay ku sii jeedeen saldhig ay ku leeyihiin deegaankan sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka. dhinaca kale al-shabaab ayaa waxay sheegeen mas'uuliyadda qaraxaas in ayagu ay ka dambeeyeen waxayna shabaabku sheegeen in qaraxu uu haleelay mid ka mid ah gaadiidka kolayada ciidamada Ethiopiaanka ay saarayeen. sidoo kale waxaa shaaca ka qadan qaraxaas ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawacba ay geysteen ugu yaraan 20 ka mid ah ciidankaas ay ku dhinteen. weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay taliska AMISOM ee ku aadan qaraxaasi. al-shabaab ayaa inta badan weerar dhabagal ah ku qaada ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika xilliga ay kaga galgaashayaan ama isku socodkooda uu socdo gobolada dalka. markan warbixinadeena kale wararka ku jirana daawadayaal waxa kamid ah ammaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa markan si weyn loo adkeynaya iyadoo laga baqdin qabo khatar weyn oo dhanka amniga. xog la helay iyo ilaha ammaanka madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegeen in feejignaan xoogan la geliyay suurtagal ahaanshaha ama weerar laga baqdin qabin al-shabaab ay ku qaadaan xarunta Villa Soomaaliya oo ah meesha dalka looga arrimiyo kuna yeelan xafiiska ugu sarreeya dalka madaxweynuhu ku shaqeeyo. laamaha amniga madaxtooyada ayaa war ay ka heleen dhanka al-shabaab waxa ay saraakiishooda inoo sheegeen in ay ka baqdin qabaan weerar al-shabaab ay qorsheynayaan oo isqarxin iyo mid toos ah inay ku soo qadan Villa Soomaaliya isla markaana ay doonayaan mid ka mid ah baraha kontaroolada ay xarunta laga ilaaliyo ay ka soo galaan weerarkaas. caadiyanba waxa aad loo adkeeyay ammaanka xarunta iyo waliba baraha laga ilaaliyo waxaana la dhigay ciidamo badan oo hubka noocyada kala duwanba isugu jira wata kuwa culus iyo kuwa fudud oo difaacyo adag ayaana laga sameeyay xeendhaabka madaxtooyada. waxaana sidoo kale halkaas lagu jira gaadiidka waaweyn xabadaha karin xarunta madaxtooyada ama wadooyinka laga galo madaxtooyada. saraakiisha ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa ku wargeliyay askarta inay feejignaan dheeri ay galaan isla markaana si adag dhabarka ay u ritaan dhagarqabayaasha shabaab ee suurtagalka ah in weerar ay soo qaadaan. waxa ayna sheegeen in aysan fursad badan loo sii doonin in weerar toos ay ku soo qaadaan madaxtooyada Soomaaliya. al-shabaab ayaa marar badan waxa weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah ay ku qaadeen madaxtooyada Soomaaliya inkastoo aysan suurtagal u noqon sanadkan inay ka gudbaan baraha ciidamada ay ka ilaaliyaan madaxtooyada Soomaaliya oo dhowr jeer hore waxaa fashilmay qorshe walba oo ay shabaab ay doonayeen weerar ay ugu qaadaan madaxtooyada Soomaaliya. maxaa ka jiray madaxweyne Farmaajo markan uu safar ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta isagoo ka baqdin qaba walaaca ah isbahaysiga ay sameynayaan Fahad Yaasiin waliba Ra'iisul Wasaare warbixintan ayaan dul istaagi doonaa. wargeyska la yiraahdo Indian Ocean Star ayaa hoosta ka xariiqay ama shaaciyaba in warbaahinta Afrikaan u soo bandhigay oo la xiriira qoraal uu helay oo ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan booqasho ku tagay dalkaas ku tagay Imaaraadka Carabta. wargeyskan ujeedada booqashada Farmaajo waxa uu ku sheegay in mas'uuliyiinta dalka la sameyn doono isbahaysi cusub isla markaana uu xaqiijiyay in ugu yaraan uu doonayo in saameyn weyn uu ku yeesho isbahaysiga gobolka ka jira gaar ahaan xiriirka dowladda Soomaaliya qadar ka dhaxeeya lana doonayo markan Imaaraadku inuu door ku yeesho. sida warbixintan lagu sheegay madaxweynaha ayaa ka walaacsan isbahaysiga hoose ay sameysteen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo ku-xigeenka si hayaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin iyo nin aan la shaacin magaciisa oo madax ka ah shirkad soo saarta shidaalka. war qoraal ah oo lagu shaaciyay saddexdaasi mas'uul ayaa dowladda Kenya kala shaqeynaya inay galaan heshiisyo aan la shaacin iyo waxyaabo kale. wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Farmaajo uu rumaysan yahay in Kheyre uu xiriir hoose ama si qarsoodi ah uu saameystay dowladda qadarna maalgelin doonta ololihiisa doorashada 2021. madaxweyne Farmaajo ayaa Kheyre siiyay awood ballaaran si uu xoojiyo taageerada gudaha ah iyo waliba howlaha dowladda. xiriirka aan la sameeyay xafiiska madaxweynaha waxay sheegeen inaysan ilaa hadda waxba ka ogeen booqashada la qorsheynayo in madaxweynaha Soomaaliya ku tago wadanka Imaaraadka Carabta. sidoo kale xafiiska madaxweynaha iyo kan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa si isku mid ahba u beeniyay sax ahaanshaha warbixintan la xiriira tuhnada labada mas'uul ay kala qabaan waxayna
ku qeexeen waxba kama jiraan wax lagu qoslayta warbixinta wargeyskan uu soo bandhigay tuhunka ku saabsan Khayre in madaxweynaha isku soo qowaa in tuhunka ku saabsan in Ra'iisul Khayre uu madaxweynaha isku soo sharaxi doono 2021 ayaa ah mid taagneed sanadihii ugu dambeeyay welina jirita suurtagal ah in cadeemo kale ay soo baxaan oo la xiriira sax aanshaha warkan oo ah in Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Khayre marka la gaar 2020 inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya qabiix dambe ee gabagabada warkiina ay soo gaarnay daawadayaal warbixinada ugu dambeeyay waxa kamid ah qaramada midoobay waxay soo saartay digniin ku aadan doorashada dhici doonta ee Jubbaland oo markan ay ka digayso qaramada midoobay ayaa ka digtay in wax faragelin ah lagu sameeyo doorashada Jubbaland ee dhawaan uu la qorsheenay maamulkaas inay ka lacdo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wynne ayaa ka warbixiyay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo shalay oo kulamo kala duwan halkaas oo kula soo yeeshay madaxweynaha Isween ayaa waxa uu sheegayaa inuu la kulmay madaxweynaha Jubbaland iyo waliba guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan ka soo jeeda Jubbaland waxa uu ka tacsiyay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay sababtay dhimashada 26 qof oo dhaawac oo dhintay iyo 56 qof oo dhaawac مسؤوليتنا waxaa sheegtay ururka al-shabaab Masar James ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay soo jeedinayso in doorashada Jubbaland waqtigeeda ay ku dhacdo isla markaana wax rabshado aysan ka dhicin waxa kale oo uu sheegay in uu ka digayo faragelin nooc kasta ha ahaatee in lagu sameeyo doorashada Jubbaland oo ay dhacdo bisha Agoosto doorashada Jubbaland ayaa waxa aad isku haya dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa inay maamusho doorashadaas halka madaxweynaha Jubbaland uu diiday doorka dowladda Soomaaliya in faragelin ay ku yeelato doorashada hadalka safiirka ayaa moodaa marka inuu muujinayo guul siyaasadeed inuu gaarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaas oo markaan aad moodo inuu ka guul gaarayo nidaamka iyo qorshaha siyaasadeed ee dowladda federaalka ee damacsanta isla markaan iminka uu helayo awoodo kale oo beesha caalamka ah oo ku garab siinaya doorashada gudaana wararka aad ka daawanaysan channelkeena xulka wararka online daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa nabadgelyo